السلام عليكم. السلام عليكم مدينيسه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. المأذي ريان حالك بردان محاساك واجيني ياهي عسركيني عرنا أخركيني أختي جبتين الدنيا ذا نما يابنا وحير يابان أرك الدنيا ذا نما يابن با وحير يابان أركاي social networking especially YouTuber gacan iyo lug iyo xafrad gacana u taagan YouTuber kii la dhahay xaqiiqdii baan haya dhabti waa qofka aan ogeyn saacadda soo socota wax ku soo socda baa sheeganaya awood rabbaani ah alla ilaahu soomaaliha ii jibin rabbi raxmaankeyo ilaahu soomaaliha ii jibin alla ilaahayo soomaali rabbi raxmaankeyo soomaalida dumarkooda rabbi oo ragga ilaahu ragga islaamnimada iyo iimaanka u soo celi rabbi alla waa la yaabay oh my god waxa isdaba ordaya isdaba yaacaya acdahay weligiin ma aragteen qof aan meel joogin oo wixii dhacay kaaga sheekeyna weli alla ma aragtay qiso aan kaaga sheekeynayo asaanan shaqo ku lahayn ma taagnayn ma joogin iskuma dhowin qaaradayda Australia meesha wax ka dhaceen all the way waqooyi waay haddana intaan soo galan ku leeyahay xaqiiqdii dhabta baa oga yaa allah nacafi rabbi raxmaanka ya ilaahay caafimaad taama nasi ilaahay wax xanuunsannahay kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga mid dhaama ma jiro laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah sallallahu la ilaahay soomaali rabbi raxmaanka ya ilaahay soomaali midda kale dhibaatada kale jirta waxay tahay talyaanigu wuxuu dhahaa sbagliando si impara qaladka waxbaa laga bartaa rafaad markuu dhaco soo lama rabin inaad aamusto oo yacni dib isu xisaabiso caawa iyo hees iyo gabay iyo garaar basically what are you saying ay qaadaysaa ilaahay yeah? You did this to me I'm doing what you حرم هذا اللي بقبل إيجارار إيه سوسافر سنة محلس كخاذ عليه إلهو أنا كشالن جقرين إلهيو لا تعباني على حالي أكون إلهي ربي رحمنك الصومالي هي قاعدة جن إلهو الجن يا شيطان يا الصومالي بهي قاعدة جن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول ناكتي اللي قبل وحليرة لما قبل ناكتي الشيقي مهرية وحليرة لما مهرني والله بلا آخر زمان
aakhiro hee zaman wa war hadda waxaan soo dhegaystay hadalladeediioo kookooban ani idhanno meel ay gelisay oo kookooban markaasay leedahay naftaada qofna ha u dhiibin walle qof walba hadday og tahay saacadda soo socota waxa soo socda hadduu isbedeli lahaa noloshiisa ilaahay xaggiisu keeni lahaa alla ilaahayo aqriya isku hadlaysan soomaaliya haddii xamar la joogana waa hub iyo dhac iyo dil iyo dhiig xalaalaysi haddaan dibadda joognana waa xan lacag lagu qaadanayo weliba lagu baryayo lagu leeyahay in adeero sabskabta isaray taabayo all you have to do just pray Allah and just follow the right path. That's it. war wax kale laguma weydiinin xoolo ii raac laguma dhihin idhis oo idudumi laguma dhihin ilaahay bari is astur waxaan ilaahay xarima ka joog cadaab waa adhe ya mucjiso iyo cibaaraba anaa maray qofka aan ka murgayno on isaga iska murgayn maxaa la dhihi karaa subxaana malik alquduus subxaana malik alquduus war yaa rabbi yaa rasuulullah cibaara kugu dhacda mucjisa kugu dhacda shouldn't you be quiet and then astaghfirullah wa atubu ilayka wariye this war maxaa hadda qabriga gashay maxay ku qabanayaan intaas ii sheeg all the fakers in Musawirada, I support, I stand. You support your shit life. You support jack shit. What can you do for her? Warma ilaha challenge garaynaysa. You guys want to tempt Allah miya in overseas. Haduu nabad ku siiye. Haduu awlaadaada school free ku geeye. Haddii caafimaad ku soo kacday. Alhamdulillah, iyo Allahu Akbar, iyo Subhanallah, iyo Astaghfirullah. laydinkuuma imaanaya but for the fact waxaadan shaqo ku lahayn xamar nin jooga boosaaso nin jooga hargeysa nin jooga gurigaaga adoo fadhiya aka booteyne dhakh bakh takh faq wallahi billah wallahi baan midin sheegay I think movie gooniya ii daaran anig idinka waxa aragtiin maahana wax kala arka ani qabri iyo su'aal aakhirada ii muuqata ani idinka waxa aragtiin fantaarnimo iyo farraq fisq iyo fawaaxish that's it halkanaad soo fariisanaysaa inaad yaro basically waa tuugsanaysaa because that's what it is like isar subscribe isar ishare gare you are begging another human being instead of you begging Allah shaqo caadi inta weydiisan lahayd xalaal oo caragwiinka dhididkaaga aad qodan lahayd waa halkaas waxa u soo fariisanaysaa mulki iyo ninkeedii odan adiga dhex joogin waad halka inta soo fariisto adoo gar iyo gafuur leh oo waxa leedahay xaqiiqdii dhabta ah baan ogahay maxaa ogtahay caalamul qulub caalamul qayb qadar Allah wama shaafa Allah qaladka wuxuu u dhacaa in wax laga barto qofna kuma bahaysataba ilaahaygi ka ridaa ku yiri ii soo kace astaghfirullah wa atubu ilayka tawba nasuha inna ma'al usri yusra culays fudeeda ka dambe bal kin dariiqi salaha imaa quit acting that you are absolutely in a noloshaada adiga aad kaamili karto oo aad magaciisiin karto you afka waxa ka da'aya matag dabadaadana ariya ka socoto sababta waxaan alla raali ka ahayn ba ma dhicin aayadka ilaahay ku sheegay xalabad boodino lacabaadin ilaahay wajigiis ilaahay isku xir shacbaan way isku diyaari ilaahay tasma waxa taagneed tasma waa la qabay ma la qabin ma la magaciiseenin you adiga dibadda jooga meel ay gabadhaas ka soo gasho ma jirto and yet you have been consumed
by nin iyo naag aadan shaqo ku lahayn. Why would you allow this much emotion investmentigan ayada gelinaysid awlaadaada salaadii adkaartii radiallahu canhuma can abi hurayra al why don't you invest that part of life? taasaa wax ku taraysa. boto fan faraq heerka aadanaha kibirka u gaara idin tusinaya. dirac aan aroos ku tegay mar labaad kuma aadayo. by the way ilaahay kaama maanicin kibir iyo batrad. diracan mar gashta mar labaad ma gashan karo. dadna waxay cunaan ilaa yihiin iyo waxay xirtaan. waxa u nooshihiin sida xayawaanka. waxa ilaahay ka rajaynaya khair. adiga ilaahay xayawaanka wuxuu kaaga duwa caqli. caqligaadii adiga aan lahaydna waa diiday inaad isticmaashid. you refuse to use your brain. caqliga alla ku siiyey baa diiday inaad isticmaasho. but for the fact aad diyaar u tahay xasaro xan dhibaato ka hadalhayn qababa qajajac faraqaaga waa ololoya kaaga ma ujeedid. adiga ilaahay inuu kugu soo maqan yahay warka ma haysid. xaqiiqdii oo dhaba waxaan ku dhahay sheekhi baa soo arkayo masawirkii baa la keenayo ma qabiyo yiriyo waa qabiyo yiri. one question waxaa raba inaan ku weydiiyo ma la dhalatay ma u dhaxday dhiig ma isaga keen dhex wa esh qosag ant maxaa kaa qosay war taada loo soo socdaa. inta iida ku maqanta ilaahay adnoo kugu soo maqan yahay. inta iida bahdilaysid bahdilkaaga soo socdo. sababtoo ah ilaahay xaqma mooga waa fair and square. oo tiyo midino ku si dheerta let me remind you that part of life either. وعليكم السلام هبر معان دقني قرحي أنيجي كازن كي جسيتهين يا أديجي كازن كي جسيتهين بيبي قال واكو سلام هاي أديجي أبتي كل جن عارف ما داري عبادة سبحان هاي شعبان كان شعبان كيس إن شاء الله تعالى إلهي سمائي وناقي إسلام نمان دمان إيمان سجن سبحان الله إلهي ودريقة ربي إلهي ودريقة ذا نقدل إلهي أشهد ذا نقفن إلهي قفكني جاردنا كل من إلهي أنت ساكت لما تدبضتها نفدنين صومالي محمد يهدد درك سنتها وعنق هذه إسكول وهي ستتفري أو الدولة دا إيكو بيشو أو عاد الحمد الشكر الملك لله ليه ويسي كان حمر جوغا إيقا جايسن إيه dadkii xilka loogu dhiibay ay hub ku gateen ayagoonan ceel u qodneen cidnana u maqneen ee caawa saa isu gubaya hubkii la gataa layska alla madaxa xanuuna ciil ooma dhinto alla ciil ooma dhinto alla ciil ooma dhinto ciil ooma dhinto gabdhaheenii waa qaawan yihiin qasaskoodiyan debate we are debating about qaskani 100% 99.9 muslimna we are freaking wasting our time حاجة غريبة وعجيبة كمان والله وبالله الدنيا دني ما يابنا وحدها يابا أركي ورانا بتقول يا هيستا عافي ماذا هيستا وحا أنتي وحا حرتها هيستا إلهي با وحا سوسن لأذهين والله وبالله وتالله لابا فرقة أدونك لغا أبورا the rest تضباطن كفرقة كله Somaliwa. How do I know that?
each and everyone wuxuu sheegay inuu xaqiiqo ogyahay. hadduu xaqiiqo ogyahay ilaahay salaadiisa iyo salligiisa iyo masaajidka cabsi uu cabsanayo berri acmaashiisa, caawu is asturi lahaa, caawu ilaahay usoo dhowaan lahaa, caawa masaajidka laga heli lahaa. nin iyo naag isqabo wax iiga darsan lahayn dhalyo, dhiig, guur, dhaqan, anything ana isugu imaanin deris war iida asxaabteeda waxay rabaan ha dhahaan. The rest of the world, what's up with you? What the hell is up with you? In couple of days, like Ramadan lagala, you still want to talk about it? Macsi iyo fisq iyo, yeah, this is your life. This is your life, 21st century. This is waxa humanity-ga kusoo kordhinaysaan Soomaaliya. nin iyo naag wax ka dhex dhacay baa hold ku geliyey. Well, I don't know if I want to cry or if I want to smile. I'm just saddened that a human being or mature, we are freaking debating about the minimalistic thing in life. We're not debating about dadka la dilayo, la gumaadayo, la dhacayo, sharci darrada, waxbarasho darrada, future-kii la dilayo, waxaan ku dhahay dadka cilmiga lahayo la gumaadayo. We're not debating about what is important for your stupid gana dheer sideedoo kale, caatee fool dheer sideedoo kale. Soomaalida dantooda kama hadlo. Waxa ka hadlaynaa حاجة غريبة وعجيبة كمان، حاجة غريبة وعجيبة كمان. الدون ninkii maanta jooga berri ma joogo. waxa kaaga daran degdegta dadka loo dhimanayo. ninkii shalay jooga maanta ma joogo. allah yarxamo, allah yarxamo. fiiriya baraha facebook, allah yarxamo, allah yarxamo, allah yarxamo, allah yarxamo. jaf 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 jirta. You still want to talk about Heblai 10 days consecutive. Waxa laga hadlaya the same two people. Are we becoming dumb or we becoming dumber? If not dumbest. Look, waa habeen, waa maalin, ilaa harka labadiisa gelin waa adduunka. We are freaking talking about the same thing over and 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 over. Why? 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 What is it in it for you? What is it? ummadda Nabi Muhammad من مغرب إلى مغشد مسلمين رمضان كإسكو ديارنا. While me and you were talking about and debating about nin inag isqabo. Yeah? nin inag isqaban waxaan ka murmaynaa waa isqabeen ma isqabeen waa isqabeen. All I want to ask you is, why should we care? Why? subax ilaahay keeno ninka Soomaaliga porno fiirsada. qof ciqaabta ma leh. subax ilaahay keeno ninka naag kufsada. jaada loogu sii daray iyo maxaa ku dhahay iyo xornimo gooni ah. Heblaayo ayadaa sheegata waxaasi run ma aha. xuquuqdan sheegaya gabdhaha Soomaalida sida loo xaqiray. waa la kufsanaa dabaqa laga soo tuura xataa leesma sii weydiinayo. 8 sano jirta caleena loo dira waa la kufsanaa leeskuma soo noqonayo. marka Heblaayo adoo dibadda joogta still nina dabada uga jirta maano. adiga nina ka fiicanta naftaada waxa soo sheegtaa. ani mugo intii dhiman abaa hal waxa ku sheega nin hore ka akhri gadaal ka soo akhri abaa rulkiisa lagu jooga adduunka. hadday America tahay iyo hadday Muqdisho tahay ninka sharciga sameeyay
ninkaa sharciga fuliya, ninka qaladka sameeyana markhaati uu leeyahay inuuna sameynin. Now naga, you need to deal with it, and the earlier you get that system, the better is for you. And I'm not saying this to hurt your feeling, because ani naga ahay. Enough is enough. Quit challenging wax adiga aan ku oolin oo aan waxna ka bedeli karin. You are wasting your valuable time that you could have done it. You could have been happier. Chinese iyo mukulaal iyo ay isburbursanaya fiirsan karte. Kan axsan la calayki kaasa ku ficnaa laha moralkaaga busto noqona. Abaayo ani aan Soomaaliya ka dhalane 30 sano waxaa isku dilaynaa, but for the fact aniga cirfida adoogay ka imaaday, adigana adoogaa wuxuu ka yimid qari jaqood. Because of that ay isdilaynaa. Horta caqli ayaa cune, dadnimana ayaa cunta. Diinta islaamkana inaan haysanin anaaba kuu sheegayo. Waxaan ku dhahay 10 beri waxa ka doodoona. Kuma dhihin horumarki, kuma dhihin lacag ha loo aruuriyo dadka baahan ee Soomaaliya jooga. It doesn't matter gobolkay ka joogaan. We never talk about khair. I think we are allergic to it. To be at peace, waxyaabaha waxa waa aan busanbusoono oo aan ka caroono. Mulkiya nin kortay, that's your better topic. For you to continue to talk about 10 days consecutive, nin inaag isqabo, that we waste to the point shiiqi meheriya la keeno. I realize Soomaalida naarta annakaa lugaheena ku doonaneyno. Ummadda Nebi Maxamed ramadaanka wallaahi oo billaah oo talaa naagta dariskeyga waxay ii keentay saxan buuxo oo sambuus oo samaysan. Eritrean waa muslimad waay. Kaala aragan ku dhahay sida la sugu imaanayo. By the thousands al sameyno sambuuska. While me and you we talking about nini naagis qabo. Dhaxda uga jirna. Yaa noo darsada, I have no idea. Maxaa nooga jira kaala adi ishag. Ana ku sheega marka. I realize 72 firqo, 73 firqo, hal firqo waxa la yiri jannada galaysa. 72 kale Hami iyo Jahiimo. She's waiting. Sidii noolu kudkuda aan masheegi kari. Because ko fidna joogna ka taga lagu yiri ka tabco. 2 fidnadii aan fidna kor saarnay. 3 waxaa samaysana meel xan la dhaho YouTube la dhaho. Markaas ninkii ragga ahaa naagu ka hadal badan yahay. Waa ka been badan yahay. Wuxuuna u joogino maanta dhan wuxuu ku leeyahay xaqiiqdii iyo dhabtii baa soo helay. Xaran qadcan waa. Waxaadan ishaadu qabanin, dhagahaanan maqlin, maba ka marqaatiin karto. Man qasha falaysa minni yiri. Xadiid qawi ah waa calayhi salaatu wasalaam. Been marqaatiilaha aakhira meel ma ku laho. Waaga bari we talking about tusmo. Qoraxda dhacday we talking about tusmo. Ma istiri gabadhan ayadoo nool. Ani markaa idin dhahay mu'minadu waa been u maleynaysin maahno. Annaga dhaqna markin ku dhahay been u maleynaysin. War qofka Ilaahay u jecel yahan ku dhaw oo ceebtiisa adduunka iyadoo nool fadeexadeeda u keena. Waa la dhaqdhaqa hadda. Qof kasta amaasheedii xasanaadkeeda for fight ku qaadanayo yawmidiin. Cimrigeeda Allah dheeray ayaantan Allah ka hay malka moodka. إلهي هنا فضحين. إلهي عورنا ربي ونا أستر. إلهي إيمانك أقوى ناقدك ربي إلهي ناقدك. إلهي أقوى إيمان نسي. إلهي أقوى إيمان نسي. إلهي يو شعبان رجب ماله كل ما هذا ما نحسوسننا. إلهي شعبان أنت كهرت ربي ورحمانك. إلهي صومالي أنها ربي ورحمانك. إلهي نون حريص. إلهي نون حريص. إلهي نون حريص. إلهي نون حريص. Allah kuwan ya aniga. My head hurts. My head hurts. Not because of you guys. My head was hurting all yesterday. My head hurts so bad. Sida ugu hiloobay wadanka. Iyo sida aynu u suurtagelayna in la aado ayaanta. 30 sano oo dhalato oo dhamaata waxa isku dileena Ilaahay qabiilka loo iga dhaliyo. I haven't done anything to anybody, but I'm being persecuted either by Hebelo, by Heblayo, or by Hebelo kale oo xanaaqsan.
oo on top of it na naaga ah. I mean, it's not my fault, but I'm always being blamed because I'm a bitch. Or so they say. Oh my God. Like, there is no escape if you are Somali. There is no escape. Either heblayo futadeeda soo qawisay, you have something to do with it. Or lama isfuushaya, you have something to do with it. Or sheikh dhiloodin dhahay. Like, we never ever check ourselves. I don't know what went to that part of life. I don't check me, but I check you. Why? One must ask, what is it in it for me that I should check you and then be a judge and then judge noqdo and then gabalka aqato? Why? Furaha naarta ma li dhiibin, kii jannadana ma li soo gaarsiinin. Ilaahay malaa'igada u shaqeynaysa ma ihi, dawaday nijaasa ka socoto. I know human being ka soo gala category-ga, and then on top of it Somali koonfur ku dhalatay ana weligeed la heshiin doona. Nimca taalo, khayra taalo, islaannima taalo. We don't want it. One of the richest place on earth is Somalia today. Balakin Somali mu shaqeeyo. Somali gaal u shaqeeya, mercenary waay. Lacaga la soo wada siiyey, millions and millions la soo siiyey inuu dan shisheeye fuliyo. Hadduuna qadar fulinin turkishku fuliyo. Hadduuna turkishka fulinin sacuudigu fuliyo. Hadduuna sacuudiga fulinin Dubai teedii fuliyo. Hadduuna Dubai fulinin Eritrea teedii fuliyo. Hadduuna Eritrea fulinin Amxaarka teedii fuliyo. Hadduuna Amxaarka fulinin tii Kenyatigii fuliyo. Hadduu tii Kenyatigii fulinin tii Norwegian ku fuliyo. Hadduu tii Norwegian ka fulinin tii EUda tii Russia hadduuna fulin tii America. Maalintaasoo dhan waa cadaabana. From A till Ya waa cadaabanahay. Ciqaab adduun. Gacmeen ilugeena ku doonana. Because we don't say Alhamdulillah kathir. We don't say Subhanallah kathir. We don't say Allahu Akbar kathir. And then we don't say Astaghfirullah wa atubu ilayk. We do not do wuxuu Ilaahay naga sugayo ma samayno. Because of that, waa ciqaabanahay. Dibadda haddii la joogo caruurihii gangster, daroogo, nin gaal raacay, gabar gaal guursatay, mid naasa soo samaysato Mrs. Qaawan la dhaho, proud ku ah, cidiyo shaydaan wadato. Maxaa la iska qaada? Kaaga sheekaynayso nin inaag sida isku magaciisa weliba lacaga lagu fiirsanaya ayada. For her. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sometimes I feel I'm not talking about Somali. Dad kale inaan ka hadlayo umalaya. How sad it is that you are the richest one country, one language, one blood, and yet we are not doing the interest of Somali. We're doing the interest of Amhar, of Eritrea, of UK, of Norway, USA, Putin. I don't care. We do not care about Firi. 20 million oo qaniyiin aan nahnay. Ba laakiin lankaaga baa dheer keegana waa gaaban yahay, so we will not coexist. This is divide and conquer. Gaalka meeshuu rabay aad joogtaa. The lesser you are, the more petrol he will get it for his country. And I'm talking about America. America meelaan dan ugu jiran weligeed ma fariisan. Believe me. Actually, trust me. Dadki intellectually garan lahaane waxay ku mashquulsan yihiin dani iyo islaan iyo Sheekh Shariif iyo Hebelo Daahir Geele iyo the rest of whatever. Dadki danteeni caruuraheeni ka dhigi lahaa one of the best hoteeladii noo dhisi lahaa, adduunka noo dhisi lahaa, eco friendly adduun maxaan ku dhahay ii sheegsaan. Dadki haddana maalgelin lahaa
baa waxay maalgeliyeen al-shabaab madaxweynaha laga daba cabaadaya nabadii nolol labadaba ilaahay ka suurtooda taasaaba qadab ah waxa u cadaabanaaba waxay tahay awood ilaaha sheegana oo rabbaani ah min rabbillah yani rabbil caalamiin ka timaada awoodda nabadii iyo nolosha labadaba ilaaha suurtageliya aadana kaadina xaaray cannot do jack shit for you noloshana ilaahay ku gashtay nabadana ilaahay xagiisa taala it's just sad it is just sad da kan wax bartana qabiil inuu ku mashquulsan yahay kan geelka raacayna qabiil uu ku mashquulsan yahay qabiilkaaga qabiila aan ahayn inuuna noolaanin this is the systemka adiga lagugu abuuray erdogan uu hubka kaaga gaday diyaaradaha uu kaaga gaday wuxuu rabaa dadkaaga inaad dhammaysid si asaga batroolkaada uu wax ugu yeesho kiisuu nooleynayaa kaaguu dilaya ninkii garan lahaa madaxweynihii meesha nasiibka u helawa diid inuu maxaan ku dhahaa dad gargaaro inuu dad hub isugu dhiibo ma ogi diid inuu laba heshiisiyo galmudug hebelow kor saaray hiiraan abgalku kor saaray I don't know dhulbahantaha wuxuu kor saaray puntlanderiska iyo the rest of dego maxaa ku dhahaa ii sheeg sool iyo cayn iyo sanaag ogaadeyntii marixaanu kor saaray ma la heshiinaa because haddii la heshiiyo hubkayaa laga gadaa yaabtire ilaahay waay haddii la heshiiyo hubkii yaa laga gadaa al-shabaab yaa lagu diraa haddii la heshiiyo al-shabaab kanaad maqlaysid sida alqaa'ida loo sameeyaa intana looga abuura maxaa keeni kara awood ay ku galaan ciidamo military meelay joogaan al-shabaabka awooddaas yaa siin kara umaleyna ninkii shalay hubeeyey leader of al-shabaab maxamed cabdullaahi farmaajo baasaboorkiisa oo dhana ku maqan the only human being oo madaxweyne noqday oo dekada u dhiibtay al-shabaab madaxweynahaaga waa la wada leeyahay marka intaas dhaho gabadhaanetood qabiilaysato no qabiilaysato mi aan runta ku sheega waa ninka hubka waddanka iska leh oo asaga dowladda uu madaxweynaha ka yahay gobolkiisii qabiilkiisii ay deganaayeen kaliya u dhiiba imagine haddee kuwii meeshaas kusoo magaciisiinto hanti waa kaa maqan tahay because hubka kusoo gadatay ama maxaara kasoo gadatay ama waxaa kasoo gaday turkish doesn't matter ama qadar ha keento ama futuud ha keeno it doesn't matter hal gobolaa hubkii dhigtay gobolka haddii lasoo hujuumo oo hantida laga qaato dadkiina la dilo yaa dhigaya u malaynaysin berri maskaxdan kuu sheegaa dee inay functionalitygeeda ay tahay xuduud ala leedahay dadaad maalin walba aad tiraahdo dhibaataana kala dhexayso hubkii oo dhan xamar waxaa oga qaaday inaan adiga lagugula dagaalin laakiin kamaadan fekerin adiga dhibka aad meeshaas geysa kamaadan fekerin xagga markay ka soo galaan kuwii kale waxaanoo dhan hadday qaataan ka waran hanti ma haysid maskax ma haysid dad ma haysid dhibkana ayaga oga badana because ayaga hubka laga qaadana way dagaalama inay hubka cishtaani rabaan hayehe smart waa lagu leeyahay ka bacdi hubkii dhanaa laga qaada xamar hub meel aan hub oolin male xamar goda faage malka lafadad ma ka soo baxaya hubaa ka soo baxaya we are the poorest country hubay hal bistoolad ku gadanaa $1,700 waxa cunana ma haysano adi kaala sheeg meesha lacagta ka keena dibadda qabiila wax lagu aruuriyaa qabiila wax lagu qaaraamaa qabiila xaafadaha lagu kala gataa qabiil marka qabiiladii lacag soo aruurinayo
just to destroy xamar or any other where حتى afgooye baydhabo it doesn't matter qabiil walba lacag soo aruurina habargid lacag aruurina abgaal lacag aruurina jinni lacag aruurina jinni ka lacag aruurina jinni ka lacag aruurina jinni waxa lacagtaas loo aruurinayo in lagu dhinto lacagtaas looma aruurinayo in masjid laga dhiso lacagtaas looma aruurinayo in malcaamad la furo quraan lagu barto lacagtaas looma aruurinayo in dugsi hoose dhexe iyo dugsi sare laga dhiso lacagta looma aruurinayo in jaamacad laga dhiso lacagtaas looma aruurinayo laan dheer baa loo aruurinaa lacagta tough luck to those laangagaabyaasha ani camal tough luck hantiya la aruurinaya ayuuta la qaadaya waxaa lagu gadaya hub beera lagu abuura ma ku dhihin I mean hoteelaa laga dhisaa kuma dhihin we are just waste of space subxaana malik alquduus subxaana malik alquduus functionality maskaxda ma aragtay functionality maskaxda iyo reasoningki wixii oo dhan fiiri maqaayada la isugu imaanaya ilkaha la iska daadinaa because of qabiil waa la isguursanaya labadii qof markay isdagaasho qabiila loo kala xiranaya is that not a sickness cudur ma ahan taas qof aan wax ka hadlaynina caynaysa subax kasto just because you have app iyo android you figure it out Allah good luck in half an hour salaadii ay joogtaani walaa baa midin sheega saacadan waxa idinku soo galab inaan salaada idinku gaaro morally ma aragtay morally I'm dead waxaan ku hamiyay oo aan ku hankayga wuxuu ahaa wiilkayga guursada ayay noqonaya xamar intaga al-shabaab hadda waxa lagu leeyahay bariira hubkeedii oo dhan ay qaadatay waxay rabaan yaa noo sheega aniga cidaas miiska halala fariisto 100 jeer aan dhahay war maxaa rabtiin dooman ma rabtiin haa waa kaasa badda gala malay la soo baxa war maxaa rabtiin beera ma rabtiin haa meelahaas joohar iyo waxa looga fiiriyo I don't know meelaha beeraha leh ha shaqaystaan ha tabcadaan this cannot be continuing the diaspora ina dad af Soomaali aqoonin dhaqankii aqoonin gabdhihii hadda naasa iyo samaysanayaan sidii Kim Kardashian u dhaqmaya qaar porno sameeyeen qaar waxaan ku dhahay fotodoodii qaawan tahay warsaan dad ma aha warsaan tala ma aha war ilaahay isku xira ilaahay talada markaa saartay adduun oo dhan furfurmaya war ilaahay ka shiixa war ilaahay ka xishooda war ilaahay u xishooda ina ilaahay meel fiican ku geey aakhiro tan iidaa babaabo wax yaraabano amin groupkayga wax yaraabano haray ya ilaahay ka cabsada ya akhay ilaahay ka cabsada inta ummadda ku maqantiin idinka isku maqnaada make time for you what have I done this morning nothing then let's start do some pure and simple I cannot talk about nin inaag ismagaciisiyey ani enough is freaking enough ha is fulan ha kala degtaana 10 days is more than, like 2 weeks what basically it's 2 weeks oo sabti ahad ka maqanta who can talk about the same human being this is what makes you dumb maanta dhan koonta bani aadana ka hadlayna day and night lama qof laga hadlay حقيقة وجودن بس حقيقة وجودن بس حقيقة وجودن بس حقيقة وجودن بس حقيقة why are you bullshitting you were not there had nothing to do with your miserable life لما قف اسفوشيان رزق كرادينوسا الله كوان محي شودان
this is the consequences of not marka ilmaha aad dhasha aadan tabcin oo aadan waxbarasho ku tabcin oo aadan diintiina ka dhisin. This is what happens. waxaan xalaalaysanaynaa inaan ka hadalno zina. Like continuously we're talking about something that you cannot change. hadalkayga dhagayso, waxaan ku iri waxa ka hadlaysaa wax wixii dhacay aadan ka bedeli karin because ilaahay kaliya bedeli kara. ilaahayga isku xir lagu yirin waa diida. maxaa ku qaban karaan marka haddaad gabay iyo hees u soo fariisata? talk about being not marka hore challenge the ahead. Now you challenging Allah. waxa ka heshid waxba hayga siin. ha ka bixina fanka. dhax fariista tunta. ina abukar gacala laga dhaha sheekadaas. tii heesaysana mii tii loo heesayna mii. hal waxa idin sheega ramadaana soo socda ilaahay ka cabsada. ilaahay ka cabsada. ilaahay ka cabsada. wixii isfuula ii ka utaala mooy ay ku shuuran wa bas annaka intaan ka bacda dam ha naga dhigina. nin inaag isfuul aan maxaa iga jir aan ma isku geey maya kushnahii korkay garas shaqo iyo shuqul dambe on ku leeyahay male. can we just forget and then move on with another thing please? This is ridiculous. niman rag xiniya qabaan soo wada galay soo matagay nina naka hadla. I talk about being a bitch. nina hanka hadla. how is he not naka? xawale xanta lagu yaqaan. hello, this was our business. anakii dumar ah ka xishoonayna nimanka hadda marka anaga la fahan u baqan. maanta dhan waxa laga hadlaa heblaaya hebel kore heblowa hebel ka degta. how long can you do this? ya Rasulullah, ya Habibullah, Ramadan is in the corner. ad yaa lagu fuulin inta dadku fuulidooda kuma qanta ad yaa lagu soo fuulin oo lagu xoogin inkaara qabtiin. subhanaka ya adil. ilaahay ka xishooda ya wallahi billahi marra waahid ilaahay ka xishooda. alla ilaahay ka xishooda ya akhi. ilaahay caafimaadka ku siiyay ee xabad meelan yeerin ku jooji gabadhaadana laga kufsanin oo saaki master degree ku dhamaynaysa ilaahay ku siiyay. ilaahaygaas gacmaha u taaga abrihiina wabka waaweyn leh ee maanto dhan gabadhii hebeloow wiilkii hebelaayo kan baa laga soo sheegay yaa kuu dirsaday. ask yourself what is it in it for you? maxaa kaaga jiro? wa ishqusak li alayki maxaa kaaga jiro? waxba waay war adi intii dadku ku maqanta ilaahay adas kugu soo maqanya. suuxo naax imad alla imad rasuul. ilaahay ka baqa. ilaahay ka baqa wax isku fala. listen, I get it inaan laankaaga dheer yahay. waa ku fiiri waa ku istaagsanahay aduu laankaaga dheer yahay oo heybtaada sareyso oo hankaaga sareeyo oo aana lagu gaarin oo faarax qarax aad tahay. saaxib ramadaan soo socdo. shut the fuck up. youtube-ka naga xir xir. awalba bijada ahayd nin ragoo shaqaystaan arki jirna. shaqadanu ka soo baxaa maqaayada wuxuu aadayaan ku dhahay maxaan ku dhahay ishak cleaning u aadaya. cleaning ku ka soo tagaya shaqada xafiisku ka soo baxaya cleaning u aadaya. laba shaqo dibadda wiilasha. this is how I came 94 ka inta wiilasha laba shaqo saddex shaqo ka shaqeynayeen. noloshooda kabantee ka soo tagayna kabayaan tii waxaan ku dhahay lagu soo dhoofiye kabayaan adduunyo. hadda nimankii naaga camal waxa waa aniga ba xaqiiqda hayo aniga ba dhabta hayo. who the fuck are you? who the hell are you? xaqiiq ku haynaysid nin inaag iskor waa maasha allah ya nimco waash qusك marka wala xaga toban bari dhan hana daalina anaka kana inkray kana yeelay maxaa meeshaan id naftaada ma ku xiran adig sakaraadka 40 ma ku jirta. the last day of your 40 ma ku jirta. shut up and move on. do something useful for your stupid miserable life kaaga oga bixaysid nin inaag isfuuli iyo waa kala degteen. kii wax fuulay nimantii tii la fuulay nimantii meeshaas waa ku orgasma la'da. so shut the fuck up. wax ba xaqiiqa ii sheegnani sheekhi mahriyaal raadi
ar Soomaaliya waxaana xooga qabtiin wadankiina ma dhisatiino saana bu xumaatada sa ugu xoog badan tihiin wanaaga ma ugu xoog badnaatiin mucjisa qabtiin mugo khayaarkiina saan adoo ku jirtid ma aragtay afar isu lagugu qaada qas qof islaameed intaad ku dhex jirtid aad mashquul ku tahay malaka moodkii aan lagu soo dirin mar la eedadaa hadile salaamu calaykum wallahi bila sabax alqarta from me sabaxakum bikhair idinka dii habeen joogtidna masaa alkhair haddii subax joogtidna sabax alkhair ani hal xaba ku sheega ramadaan waa imaatay shaydaanka waa la xiray xantaa excusekeeda inta iska imaana marka hadda inta keeni waana abuurisaa ka horreysa soomaaliya xoogga aa u leedahay xumaha I wish inaa samaanta iyo nabadda inaa keentiin aa u lahaatiin rabbi iyo rasuul ilaahay meel weyn inaasan gaarsiin lahaa waxaana meel weyn u gaarayn maanta dhan kuunta aan la ii dirin aan ku dhex jiraa arbitra ka ahay Manchester iyo Liverpool oo ciyaarayso kale ma raaxaysanin shaqo kuma lihi ma taagneen ehli arxab ma nihin muraadkooda waxaan ku dhahay iyo ceebahooda allah u asturo sallallahu wabarak calayh anigana rasuulka allah igu xiriiriyo iikana rasuulka allah kusoo xiriiriyo sallallahu wabarak calayh tii fanka ka baxda alxamdu tii ku jirtana alshukru lilah rabbilcaalamiin وانا ايش قصني يا هل نفرحنا تعبانه على حالي يا وضع تن هدين ويلكيغ اوغي او ودنكاس نبد دعد الحمد الشكر هدي كلمه هنا اني شمبرها سو كيف فاتحه السلام عليكم والله بالله هبر زهره ورسم دور I love you more than life itself هبرتي قالي هذا I just love you إلهي درتي سكوج على هبر معان I just love you each and everyone who comes and watches me and please don't share, do not subscribe, I do not sum up anything. What I'm saying, hadik so gart alhamd, hadik so garin al shukr lillah. But what hurts me the most is the Inanahay, the richest country of the entire universe. One blood, one of Somali, one deen, and then we cannot get along with it, within each other. I cannot get along with my own compatriot. Why? I have no excuse. This is the saddest thing. We are the only country that Allah chose for it. Isku up, isku isr, isku dhaqan, isku hadal, isku everything. But adilankaga der ankega gaban, you wanna make me a slave for you. Kunta kinta shimas kadamad bugan ibugayasha slavery shimas damad mtaqana i dictator shimas damad Mugabe oo raaca Afrika. Ilaahay ka cabsad. xoolaha masaakiinta la idin kugu dhiibo aad isdaba marinaysaan ad beeraha iyo adduunyada ka gadan aakhir cadaab ataasha ilaahay ka cabsada yaa rabbi yaa rasuulullaahi ilaahay ka cabsada naagahan aad iska wada fuulfuulaysan just because bunduqa qabta that's not fair dadkan aad iska dilaysaan dhiigooda xalashateen that's not fair by the way shabcaan lagu jira people are getting prepared wadamada muslimka oo dhan waa faraxsan yihiin because Ramadan soo socdo only Somali is talking about nini nagas full Allahumma ballagt ana waa ku xasuusiye wixii ka soo bisid wabillahi tawfiiq xabibti iyo xabiibiyo fa'fu anni afkay waa ogahay runta ka da'ayso I'm not sorry this is my wajib. Okay, and I get it, I'm a bitch. However you want to put it. But what I'm saying to you is, so think about it. Think about what ilahi usubinaysid marka adi ilahi loo hortagaysid. Think about it. In xaqiiq ogo salaan Allah kugu taal adi laankaaga dheer oo libaaxa oo leerta jiifo maaragt whatever the hell it means salaan Allah kugu taal والله بالله خاف من ربكم واتقوا الله والله وبالله وتالله خاف من ربكم الأعلى واتقوا الله خاف من ربكم الأعلى واتقوا الله because he is the one who is gonna save you good luck baby نسيبكين مقو by the way in case I don't reach Ramadan Mubarak مقدما إن شاء الله تعالى كريم